وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم. والسلام يا علماء لما يرد الحفاظ الله يويل الباء مسؤولين تقرأ كيك الدول مدحوينك حجينك يدمان dadka khayrka badan ee ka soo qayb galay munaasabadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa farxadii ah iyo sharafba inaynu ku kulanno madashan barakaysan innagoo weynaynayna kalaamka alleh. ilaahay waxaan ka baryayaa in kulankeenna khayrka qaba iyo ducooyinkii faraha badnaa ee la duceeyey uu madar khayr qabo inoo shubo, abaartana inaga jebiyo. qur-aanku kaalinta uu nolosheenna ku leeyahay akhris keliya maaha, cibaadana kuma koobna. qur-aanku waa manhaj dhammaystiran oo nafta rabaynaya, anshaxa iyo akhlaaqda bulshada wanaajinaya, quluubta nadiifinaya, dowladnimada iyo kala dambaynta xoojinaya, naxliga iyo nacaybkana niyad wanaag iyo isjacayl ku beddelaya. ilaahay casa wajalla wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. bisha ramadaan qudheeduna waa dugsi ruuxda dhisa, wanaagga bulshada iyo isku duubnida adkeeya, oo muslimka ku tababara midnimada, iskaalmaynta iyo in dadka baahan la kafaalo qaado. waxaan mar kale caawa caddaynayaa in anigu shakhsi ahaan iyo siyaasadda xukuumadayduba ay ixtiraam weyn u hayso doorka ay culimmadu ku leedahay bulshada nolosheeda iyo hoggaaminteeda. waa doorkii weligeed ay ku lahaayeen dowladnimada muslimiinta. waxay ahaayeen gaadhayaha qiyamka toosan iyo waardiyaha shareecada islaamka. taladooda iyo toosintooduna waxay ku dhisnayd daacadnimo, xikmad iyo inay noqoto sir u dhaxaysa caalimka ama sheekha iyo qofka uu toosinayo intuu kafool ku heli karo, si dhegaha caamada looga fogeeyo wixii dhaawac gaadhsiinaya kala dambaynta iyo dowladnimada ummadda midaynaysa. waxaa kale oan bagaadinaya kaalinta culimmadu kaga jirto midnimada iyo wadajirka bulshada. waxaan idinka codsanayaa in sidii awalba aad yeeli jirteen inaad sii kordhisaan doorka aad ka qaadanaysaan wacyigelinaha kala duwan oo ay maanta ugu daran tahay gurmadka abaaraha. xoolihii way leedeen, dalaggii beeruhu way be'een, dadkiina biyo la'aan iyo cunto la'aan ayay u geeriyoonayaan. maanta ma aha maalintii dowladdoo qudha lagu eegi lahaa. waxaynu u baahannahay shacbiga dhammaantii iyo xukuumaddu inay iskaashato. dowladdu intii taalkeeda way dadaalaysaa, wixii ay dhaqaalo bixin karaysana way bixisay, wixii kalena way ku maqan tahay. waxaan soo jeedinayaa guddiga abaaraha iyo culimmadu inay iska kaashadaan in dadka la wacyigeliyo oo ganacsatada la wacyigeliyo. dhammaantood aynu ka qayb qaadanno gurmadka, waayo sidii sheekh cismaan sheegayey dadkii iyo xooluhu kala hadhi maayaan haddii abaartu sii socoto. labadaba waynu waayaynaa. islaamku guud ahaan waa diin nabadeed. waxaa waajibiyey ilaalinta nafta, maalka iyo karaamada muslimka. waxa uu adkeeyey u hoggaansanaanta sharciga iyo dowladnimada. nabaddu waxay ka bilaabantaa qofka naftiisa, markaasay u gudubtaa qoyska iyo bulshada, kuna fidaa
dalka iyo dowladnimada dooni keliya ay dadka reer Somaliland wada saaran yihiin dhiigga meel ka daataa cirifka kale ee dalka ayuu ku yahay hagardaamo iyo dhiigbax waxaa maanta la soo sheegay in gobolka Sanaag waqdariya dagaal ka dhacay marka waxaan ugu baaqaynaa dadka halka isku laayay bil Ramadaanna waa lagu jiraa marka waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo inay ka cabsadaan waayo dhiigga islaamka waa la xaaraantinimay waxaan hambaliyo iyo ducaba guddoonsiinaya dhalinyarada hormuudka ah oo noqonaya culimadii berrito waxaan bogaadinayaa intii dadka gashay dhammaantood ee dhammaan gobollada joogtay iyo intii halkan timi ee finalka ahayd ee jaayisidaha qaadatay iyo inta aan qaadanba oo sidii la sheegay culimadu dhammaantood dad guulaystay ah waxaynu siinay dhalinyarada waxay hadiyad yar hadiyad waalidnimo laakiin uma dhiganto waxa la siiyey iyo waxa qulubtooda ku jira ee qalbigooda ku jira oo ah quraankii kariimka ahaa oo ay xafideen wax ka weyn baa runtii midnaydeen laakiin insha Allah wax ka weyn baa xagga Ilaahay ka helaysa waxa caawa farxadii ah inaan la joogno oo aan kala qayb galay tartankii ay ku guuleysteen dufcaddii labaad ee hablaheena oo xufaad ah xukuumad ahaan siyaasadeennu waa inaynu hablaha ku garab galno kaalin kasta ay bulshada wax uga tari karaan waxaan ku soo gunaanadaya sidaa la sheegay abaarta ilaahay inaga soo qaboojiyo waxaa intaa inoo dheer colaado badan oo Soomaaliland ku socda cidna waxba ma inaan geysan cid aynu wax ka qaadnay ma jirto marka waxa loo baahan yahay shacbigu waan ugu baaqayaa inuu midnimadiisa iyo wadajirkiisa ilaashado inuu qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa difaaco waxaan culimada uga mahadnaqayaa runtii intii ictiraafka la helay kaalintii ay ku lahaayeen siday dadka ula hadleen siday ugu jawaabeen dadkii diinta ku soo dhuumanayay ee sida khaldan u turjumayay culimada waan u mahadnaqayaa waan u ducaynayaa ilaahay madar khayr qaba hayna siiyo ilaahay madar khayr qaba hayna siiyo ilaahay dadkeena qulubtooda ha soo jeediyo ilaahay colaada iyo dhibta iyo dagaalada haynaga badbaadiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته